waxaan u joognay magaalada Ceerigaabo oo nimidnay in Ilaahay soo celiyo annaguna aan ka qayb qaadanno oo aanu bilowno nabadii magaalada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag guud ahaan in nabadii ku soo noqoto dadweynaha Ceerigaabo waxaan mar labaad in asxaabta ka codsanayaa inta joogtay inta maqanba in la iscafiyo magaaladu waa magaaladiinii dhammaantiin inta joogtaana inta maqan ha soo dhaweyso oo niyaha ku soo dhaweyso ha iska ilowdo dhibtii dhacday hadda biyo dhaamis baa laga galay gobolada Sanaag iyo Sool maanta biyo dhaamis cidina ma gaarsiin karta Ilaahay waxaan baryanaa waa jiilaal dabayaaqadii waa kaliil in Ilaahay raxmadiisa soo dedejiyo gacanta Ilaahay iyo raxmadiisa lagu dhergayay lagu dhergi maayo biyo aan dhaaminay iyo booyado waxbayna tarimayaan marka Ilaahay baa mahadle inaan maanta oo bisha Ramadaan 10 tahay inaan halkan isugu nimaadno inaan dhagax dhigno 3 ceel oo biyo ah oo sida wasiirka iyo gudoomiyaha gobolka iyo degmada sheegeen loogu tala galay Ceerigaabo 2 degmada Ceerigaabo loogu tala galay magaalada iyo mid loogu tala galay agagaarka magaalada Ceerigaabo usbuucii saddexaad baa noo bilaabmaya waxaan u joognay magaalada Ceerigaabo oo nimidnay in Ilaahay soo celiyo annaguna aan ka qayb qaadanno oo aanu bilowno nabadii magaalada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag guud ahaan in nabadii ku soo noqoto waa iska adduunyada way ka dhacdaa rabshada way dhacaan dhibaatooyin way yimaadaan laakiin bini aadmigu wuxuu ku kala duwan yahay inuu istaba qabto oo dhibaatadii la joojiyo oo laga soo noqdo oo la iscafiyo dad islaamana waynu nahay bisha Ramadaanna waan joognaa dadweynaha Ceerigaabo waxaan mar labaad in asxaabta ka codsanayaa inta joogtay inta maqanba in la iscafiyo magaaladu waa magaaladiinii dhammaantiin inta joogtaana inta maqan ha soo dhaweyso oo niyaha ku soo dhaweyso ha iska ilowdo dhibtii dhacday inta maqanina ha ku soo hilowdo oo wada magaaladoodii oo ha timaado Ilaahay baan noo baryanaa Ilaahay qulubteena isku soo duwo maanta farxad bay noo tahay inaan 3 ceel oo biyo dhagax dhigno wadajirkii waa horta waa qasab oo inaynu hirgelino wadajirkeena oo dad wada nool aynu noqono ummadda Soomaaliland oo la iskaashado la iska rabsado waa wadajir waxqabadkuna waxa weeyaan in la helo wixii lagu noolaan lahaa bulshada ku noolaan lahayd biyuhu waa nolosha ayay kow ka yihiin asaaska haddaad raadan tahay wax kale ku fikiri maysid cunto laguma fikiro waxaad ku fikiraysaa waxaad cabto maanta farxad bay noo tahay wasiirku iyo gudoomiyaha gobolka iyo degmada inay halka wada joogaan oo wasaaraddu ay ku dadaashay inay 3 ceel oo degdega halkan laga qodo inta ku dhamaan mayse waxaan isku dayaynaa gobolada wadanka oo dhan in biyo la'aantan laga baxo hadda biyo dhaamis baa laga galay gobolada Sanaag iyo Sool maanta biyo dhaamis cidina ma gaarsiin karta Ilaahay waxaan baryanaa waa jiilaal dabayaaqadii waa kaliil in Ilaahay raxmadiisa soo dedejiyo gacanta Ilaahay iyo raxmadiisa lagu dhergayay lagu dhergi maayo biyo aan dhaaminay iyo booyado waxbayna tarimayaan marka wasiirka wasaaradana waxaan leenahay waan ku hambalyeynaa inuu baahida Ceerigaabo ay degdeg uga soo jawaabaan 3 ceel ku dhamaan maayaan wasiirka waxaan leeyahay waxa la wixii kala yimaada qaybtooda gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ha loogu soo dadaalo annaguna waan ku dadaali doonaa dawlad ahaan madaxweynahana waan u gudbin doonaa dhibaatada ka taagan ee biyaha gobolka Sanaag ay qabaan aad iyo aad baan wasiirkana ugu mahadinaynaa inuu yimaado ugu bogadinaana inta kalena waxaan rajaynaynaa inuu ka qayb qaadan doono oo tixgelin gaar ah siin doono waa oomana dhulku marka in la tixgeliyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka degmadana waxaan leenahay baahidiina soo gudbiya la xishoonine wax qabad baan haynaa intii itaalkeena waan wadanaa ilaa iyo magaalada Ceerigaabo iyo gobolku aw biyo ka dhergo joojin mayne waan wadanaa dadweynaha reer Ceerigaabo marka ugu dambeyn waxaan leeyahay nabadii lagu dadaalo gogasha madaxweynuhu uu ku ballan qaaday oo uu fideeyay ana waan baahiyay waxaan dhahay nabadii la soo celiyo nabad bay waxaan ku noqdaan biyaha la cabi ma hadaan nolol jirin Ilaahay idinka waxaan kala jeedinaa in dadkeena Ilaahay isku soo niyadooda iyo qalbigooda in Ilaahay isku waafajiyo maamulka gobolka iyo degmadana waanu mahadnaqnaa intaana joognay sidii ay wax noola qabteen iyo dadaalka ay muujiyeen inta kalena wixii dhiman wax yar baaba noo harsan Ceerigaabo intaana Ilaahay idinka waxaan jeedinaa maanta aanu soo gabagabeynaa haddii Allah ilaaho dadweynaha waxaan ugu bishaareynayaa nabadii iyo gogoshii way taallaa laga qayb qaato oo nabadda wax ku jiraane nabadda aan dhisno ummadda Soomaaliland dhammaanteedna ka qayb qaadato
in magaalada Ceerigaabo iyo meel kasta oo rabshado ka jiraanba in lagu soo celiyo sidoodii hore. Shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka. internetka bilaa xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25%. Hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya. Shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. Hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20. Si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. Macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay.